bismillaahirrahmaanirrahiim kulan wacan oo wanaagsan daawadayaal saaxiibayaal waxaad ku soo dhawaataan oo aad ku soo saqdaan barnaamijyadeena halkan waa channelkeenu ku leenahay YouTube-ka ee tubta wararka qodobada ugu waaweyn ee aan daawadayaal saaxiibayaal idinku soo gudbi doonana barnaamijyadan idinku soo maqanna waxaa ka mid noqonaya ciidamada Ruushka ayaa waxa ay gantaalo ku rideen oo ay ku burburiyeen baqaar weyn oo ay ku jiraan hubka Mareykanka iyo sidoo kaleba Yurub kuwaas oo loogu deeqay dalka Ukraine hadaba war ayaan daawadayaal idinkeena Ruushka hubkan uu burburiyay inta uu gaarayay Mareykanka iyo qaaradda Yurub war culus ayaa ka soo baxay warkan naxdinta leh ee ku socda hogaamiyaha Ruushka Vladimir Putin ee ka soo baxay midowga Yurub iyo sidoo kaleba dalka Mareykanka ee uu hogaamiyo Joe Biden ayaa barnaamijkeenan idinkugu soo gudbi doonaa idinkugu qaadaan dhigi doonaa dhanka kale waxaa la sii deynayaa labadii nin ee Britishka ahaa ee lagu xukumay ciqaabta dilka kuwaas oo la dagaalamaya ciidamada Ruushka caawinaya ciidamada Ukraine hadaba Boris Johnson ra'iisul wasaaraha dalka UK ayaa waxa uu dalbaday in la sii daayo xukunkana waxa uu ku tilmaamay mid ceeb ku ah dalkiisa falaqayn iyo sidoo kaleba faaqidaad ayaan sameyn doonaa saaxiibayaal soo dhawaada daawadayaal muuqaalkan like saar oo sii share garay inagu soo biiro subscribe inoo saar channelka Furagan Baralka si durbadiiba ay ku soo gaaraan muuqaalada aynu halkan idinku soo gudbino sidoo kale daawada waxaan ka dalbanayaa in qaybta hoose ee faalada lagu gudbiyo commentiga aragtidaada saliimka ay noogu reebto markaana aynu gudagalno faaqidaada qodobadii aynu soo dulmarnay Ruushka ayaa ilaa iyo hadda waxa uu ridayaa gantaaladiisa ridada dheer waxa uuna ku bartilmaameedsanaya xarumo iyo goobo muhiim ah oo ku yaala dalkaasi Ukraine dagaalka Ukraine oo ka soconaya ayaa mid aan kala joogsi lahayn qasaarooyin baaxad leh ayaana ka dhalanaya saacadba saacada ka sii dambaysa dagaalka xooligiisana sida aanu horay idinkugu sheegnay saaxiibayaal waxa uu ka soconaya magaalada Zaporizhzhia oo ku taal bariga dalkaasi Ukraine madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa dalbanaya in dagaalka la xoojiyo ciidamadiisa ayuuna ku bogaadinaya in ay si laba jibaaraan howlgalada ka dhanka ah kuwa Ruushka ciidamada Ruushka ayaa iminka la soo tibaaxaya in ay rideen gantaalada la yiraahdo Kalibr cruise missiles waxa ayna sheegayaan xoguhu inay burburiyeen gantaaladaas baqaar weyn oo ku jiraan hubka Mareykanka iyo sidoo kale Yurub oo ku yaala gobolka Chernobyl ee dalka Ukraine waxa sidaasi sheegtay warbaahinta ama wargeyska la yiraahdo Interfax waxa ayna soo xiganaysay wasaaradda difaaca ee dalka Ruushka wasaaradda difaaca ee Ruushka ayaa warkan tibaaxday waxa ayna si cad u sheegtay inay gantaaladaasi ku burburisay hubka reer galbeedka ugu deeqeen dalka Ukraine kuwaas oo ay ku jireen hubka Mareykanka iyo sidoo kaleba Yurub hubkana waxa uu yiilay sida ay wararku sheegayaan gobolkan la yiraahdo Chernobyl oo ku yaala dalkaasi Ukraine hubka la burburiyay waxa lagu burburiyay gantaalada oo Ruushku leeyahay waxaana gantaaladaasi magacoodu lagu sheegay Kalibr cruise missiles ciidamada Ruushka iyo sidoo kaleba kuwa Ukraine duqeymaha iyo sidoo kaleba hubabka culculus ayay isku adeegsanayaan waxaana aysanba u tureen dadka rayidka kuwaas oo aan waxba galabsan balse korkooda lagu kor dagaalamayo ciidamada Ruushka ayaa sidoo kale lagu soo waramaya inay soo rideen 3 diyaaradood oo nooca Su-25 ah oo laga leeyahay dalka Ukraine waxaana ay ku soo rideen meel u dhow Donetsk iyo sidoo kaleba Kharkiv oo ku yaala bariga Ukraine sida ay sheegtay wasaaradda gaashaandhigga ee Ruushka wasaaraddu waxa ay tibaaxday in 3 diyaaradood ay u suurta gashay kadib markii ay duqeeyeen in ay soo dhacdo amaba ay soo ridaan dhulkana ay la simaan Ukraine dhacdadan way cambaareysay waxa ayna sheegtay in ay tahay dhacdo laga fiicnaa ama laga wanaagsanaa in la hirgeliyo amaba la sameeyo si waliba oo xaalku noqdo Ruushka iyo sidoo kaleba Ukraine dagaaladoodu waa kuwa aan kala joogsi lahayn reer galbeedka iyo NATO ayaana ku baaqaya in xaalka la dejiyo la qaboojiyo marxaladda si ugu dambeyn xiisada loo damiyo oo markaasi lagu dhameeyo wada hadal iyo sidoo kaleba wada xaajood laakiin hogaamiyaha Ruushka ninka mayalka adag ee lagu magacaabo Vladimir Putin waxa uu u muuqdaa mid aanan yeelin wada hadal iyo in uu yimaado miiska wada hadalka
si xiisadda ugu dambeyn loogu soo dhammeeyo natiijo midho dhal ah oo u wanaagsan labada dal ee halkaasi ku hardamaya Ukraine iyo sidoo kale Ruushka. reer galbeedku iyagu waxa ay dhanka kale lagu eedeynayaa in ay hub ku sii daabulayaan magaalooyinka waaweyn ee ku yaala dalka Ukraine, gaar ahaan bariga Ukraine Severodonetsk, magaalada oo iminka dagaalka xooligiisa ka soconayo. hubkan ayaa loo arkaa in lagu soo horinayo dagaalka, wada hadal iyo wada xaajood halkii ay ka abaari lahaayeen reer galbeedkana hub ayay door bideen in ay ku sii daabulaan Ukraine, ayay leeyihiin dadka falaqeeya dagaalka u dhaxeeya waqti xaadirkan dalalka Ruushka iyo sidoo kaleba Ukraine. dhanka kalena daawadayaal haddaynu eegno waxaa la sii deynayaa labada nin ee Britishka kuwaas oo lagu xukumay ciqaab dil, waxaana lagu eedeeyay la dagaalanka ciidamada Ruushka iyagoo saacidayay ciidamada Ukraine ee dagaalka ba'an ama weerarka qaawani lagu soo qaaday horaantii ama dhamaadkii bishii Febraayo 24keedii sanadkan 2022. Brandon Lewis wuxuu sheegay in ra'iisul wasaaraha dalka UK iyo sidoo kaleba xogayaha arrimaha dibadda ay si buuxda ugu hoolan yihiin in ay isku dayaan in ay caawiyaan labada nin ee Britishka ah oo lagu xukumay ciqaabta dilka ee la dagaalanka ciidamada Ruushka. Boris Johnson oo ah ra'iisul wasaaraha dalka Ingiriiska ayaa ku amray wasiirada in ay sameeyaan wax waliba oo ay awoodaan si loo sii daayo Sean Bainer oo 48 jir ah iyo Aidan Aslin oo 28 jir ah, kadib markii labadan qof lagu xukumay xukun dil ah taasoo ay dowladda Ingiriiska ama UK ku tilmaamtay xukun ceeb ah. mar la weydiiyay haddii ay jiraan wax Britain ah ay dhammaantii sameyn karto, xogayaha waqooyiga Ireland ayaa u sheegay Sky News Zoe Rich ayaa markaa way adag tahay in la galo faahfaahinta kiis gaar ah iyo sida iska cad, gaar ahaan iyada oo aan ogolaansho laga helin shakhsiyaadka. laakiin xogayaha arrimaha dibadda iyo ra'iisul wasaaraha waan ogahay in ay si buuxda arrintan ugu hoolan yihiin iyagoo la shaqeynaya Ukraine, sababtoo ah waxay u adeegayaan ciidamada qalabka sida Ukraine. sidaas daraadeed waxaa lagu ilaalinayaa axdiga Geneva, taas oo dhammaan dowladaha adduunka oo dhan ay ixtiraamaan muddo 10 sano hadda, ayuu markaasiba yiri. xaalku ma sahlana, laakiin waxa ay u badan tahay in labada nin xukunkooda laga laabto isla markaana dilka xukunka laga khafiifiyo iyadoo la fasaxayo xoriyadoodana dib loogu soo celinayo. dagaalka Ukraine iyo Ruushka markii uu bilowday waxaa jiray dad ajaanib ah kuwaas oo u soo gurmaday dadka reer Ukraine, waliba iyagoo ka saacidaya dagaalka adag ay kula jiraan Ruushka. waxa ay dadkaasi ajaanibta ka ciishoodeen weerarka gardarada ah ee uu Ruushku ku qaaday 24kii Febraayo dalkan tabarta yar ee daciifka ah ee lagu magacaabo Ukraine. reer galbeedka ayaa waxa ay ku caawiyeen dadka ajaanibta ah ama ay ku dhiirigeliyeen in ay dagaalka sii wadaan la dagaalanka Ruushkana ay xooga saaraan. laakiin hadda Boris Johnson ra'iisul wasaaraha dalka UK waxa uu ku guuleysan karaa, ayay leeyihiin xoguhu, in uu sii fasaxo labada nin ee Britishka isla markaana dalkaasi lagu xukumay kuwaas oo lagu eedeeyay la dagaalanka ciidamada Ruushka. wixii warar oo daawadayaal ku soo kordha halkan ayaa ku daawan doontaan. muuqaalkan like saar oo sii share garay, inagu soo biir oo subscribe inoo saar channelka Faraga Malaalka si durbadiiba ay ku soo gaaraan muuqaalada aynu halkan idinku soo gudbino. waa ku mahadsantahay daawade la socodkaada iyo la jaanqaadkaada intaba. qaybta hoose ee faalada lagu gudbiyo commentigan aragtidaada saliimka ay inoogu reeb. tan iyo barnaamijkan kiisa kalena daawadayaal saaxiibayaal intaynu dib isugu kulmi doono nabadgelyo.